si aadan u noqon waalid qaylo badan markaad ilmahaaga wax u dhigayso, kaalay aan kuu sheego waxaad samayn lahayd. fikirka ku jira madaxaaga marka aad wax sharaxayso ee aad adigu fahansan tahay, laga yaaba ilmahaaga inuuna kula qabin fikirkaas oo uuna heerkaa aad adigu wax u fahansan tahay uuna gaarin. marka sharaxa badi oo si weyn ilmaha wax ugu sharax, si aanay goobta waxbarashadu ama meesha aad wax ku baranaysaan u noqon goob dagaal. waxaad samaysaa u sii diyaar garow in ilmahaagu uuna waxba kula fahmi karin, oo maalintaas ama waqtigaas ama saacadaas, daqiiqadaas, sakanadaas uuna waxba kula fahmi karin ilmahaagu. marka ha ku dagaalamin meeshaas oo ha caroon, dhiigana ha isku kicin, isdeji, kuna diyaar garow in lagu fahmo ama in lagu fahmi waayo. ha isku koobin oo keliya in aad buugga wax ka sharaxdo, waayo buugga laftigiisa waxaa loogu talagalay in uu macalinka sharaxo. marka waxaad u baahan tahay ugu horeys fikradda ama waxa aad baranaysaan inaad sii sharaxdo, kadib buugga aad soo qaadato. yaanay ku seegin oo ha moogaan in aad mar walba ilmahaaga la isticmaasho waxa loo yaqaano dib ugu noqoshada wixii aad soo barateen iyo ugu celcelinta mar walba wixii aad baranaysaan, waayo labada dib ugu noqoshada iyo ku celcelinta labada qodob waxay aad u caawiyaan ilmaha yaryar marka ay wax baranayaan. soo sidaa darteed labadaa ha moogaan marnaba. waxaad isticmaashaa sawiro inaad wax sawirto markaad wax sharaxayso. waxaad samaysayoo kale alaabaha guriga la soo aruuri oo u isticmaal sharaxaada, waxba ha ka tegin, yacni weelasha, wax walba waad u isticmaali kartaa markay caruurta yaryar yihiin si aad fikrad ama macluumaad maalintaas aad ka dhaadhicisid ilmahaaga yar. ugu dambaystii, caruurteena waa inaan u sabrnaa haddii aan nahay waalidiinta marka aan wax barayno. haddaan anagu u sabri weyno markaan wax barayno oo aanan ku caroonin oo aan sabir muujin weyno, yaa u sabraya ayaga.